fariin ku socota golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin seed waa murashax u taagan jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani waxaanu ka mid yahay aasaasayaashii xisbiga ee naf iyo maalba u soo huray marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xisbigaasi muddadii uu jiray. waxaan hadda halka ka caddaynayaa oon mar horena aanu caddeeyey in ahay murashaxa koowaad ee xisbiga madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani. axmed muumin seed waxa uu ugu mudan yahay murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani marka loo eego taariikhda uu ku leeyahay xisbiga. balqaadaya ka musharax ahaan haddii ilaahay igu guuleeyo kursiga aan u socdo inaan ka shaqayn doono midnimada iyo qarannimada Soomaaliland sidaan uga midhodhin lahayn inaynu ka guul gaarno. axmed muumin seed waxaanu ka codsanayaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani in ay codkooda siiyaan oo ay u doortaan murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee wadani marka la gaadho shirka golaha dhexe ee dhawaan la qaban doono. halka cod uga diraya anigoo ah axmed muumin seed oo ah mujaahidka xisbiga mucaaradka ee wadani muddada 5 sanana u soo halgamayay inaan kursiga hiigsado aan gaadho dhammaan taageerayaasha 6 gobol ee iman doona xubnaha golaha dhexe codeynaya waxaan ka codsanayaa iyagoo eegaya hawsha aynu qabannay iyagoo eegaya kartidayda iyo awooddayda iyo taariikhdan xisbiga wadani gudihiisa ku leeyahay inay codka siiyaan.